maxay tahay sababta ka dambaysa soo qaadista heesta fanaaniinta kale ah Nimcaan Cabdiraxmaan Hillaac iyo Dalmaryare? Maxaase arrinkan ku soo lifaaqay Safiya Tusmo? Heestan labadan fanaan ay soo qaadeen miyaa lagu karbaasayaa Cabdi Cajuun oo horay u dhibaateeyay Safiya Tusmo? Bulshada isticmaasha baraha bulshada maxay ka yiraahdeen arrinkan? Xogo badan oo kaa qarsoon ayaan muuqaalkan daawada kuugu bidhaamin doonaa. Fadlan muuqaalka like saar oo janaalkeena Ducaysana Media subscribe garee, lana wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade la jaanqaadkaaga iyo qaabka quruxda badan oo aad muuqaalada bartaan aan soo gelino aad u sheer garayso. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafeeda ku soo dhawaada janaalkeena Ducaysana Media oo aan kaga hadli doona maanta warbixin xiise iyo xamaasadeeda wadata. Waxaa dhawaan soo ifbaxday hees ay wada qaadeen fanaaniinta kale ah Dalmaryare iyo Nimcaan Cabdiraxmaan Hillaac oo ka hadlaysay inta badan in dumarka loo naxariisto, balse ereyada heesta iyo hadal hayntii ahayd in Cabdi Cajuun uu si foolxum ula dhaqmay Safiya Tusmo, fadeexo iyo ceebna uu u soo jiiday in sidaa darteed Nimcaan iyo Dalmaryare ay heestaa sidaa u soo qaadeen. Haddaba daawade ila milicso qayb yar oo heestaa ka mid ah, waxaana ereyada ku jira: maxaa ku qayray adoo qalanjaa, nimaan ku qadarin maxaa kugu daray, oo micno ahaan dadka qaar ay u fasirteen in Cabdi Cajuun oo ah bahal ku dhex jira ragga Soomaaliyeed maxaa kuu geeyay Safiya Tusmaay, taasi oo gantaal garbaasha ku ah Cabdi Cajuun oo dumarka qaar ay ka cabsadaan. Cabdiraxmaan Hillaac iyo Dalmaryare ayaa noqonaysa mid dhiirigelinaysa dumarka Soomaaliyeed ayna kaga gambadaan ragga arxanka daran ee dumarka sida foosha xun ula dhaqma. Ku mahadsanid daawade daawashada muuqaalkan. Fadlan muuqaalka like saar, noona subscribe garee janaalkeena Ducaysana Media, kuna mahadsanid daawade oo la wadaag saaxiibadaada. Waxaana dhawaan bilaabi doonaa daawadayaal muuqaalo joogto ah oo maalin kasta aan soo gelin doono janaalkeena Ducaysana Media sida aad ula socotaan xogaha iyo waxyaabaha qarsoon ee dhacaya.